السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سلام يا بعد سلام حرجينا في عنتهين. وحدنا إن شاء الله كمان تنا ذكروا ده أقول شقوين كوكوبان وأيوه الرئيسو هيدا الله يقانا IOM International Organization for Migration. وحيوبا عند هاي Media and Communication Officer بيوبا عند هاي specifically مقدشو Somalia. سقالة تكتشون أي أشخاص يدلين كده كويجي هاي أبغى كستحلاتن جريد هانا حيوه B2 وحلو بهاي professional staff وفاسينه هذا شقدا مركا عندي كوفي عن سؤال تاني حالين كرتو حاجة ميديا هكون أحسن إيو communication كا قف هاو شاوا هاو قلا حاجة مقدسة أي IOM وجوبا هانت هاي waxaan xagga hoose idin kula wadaagi doonaa linkiga shaqada ilaa ka dhigo sidaas darteed qofkan maxaa looga baahan yahay ee su'aashu tahay horta aqoonta waxa looga baahan yahay education ahaan inuu ahaado master's degree in journalism communication marketing development international relations iyo in other field kale hawsha la xiran أما حلوة بهاي university degree above fields أما degree بلوجو بهاي هدي لدونا وأنت ماستر كلاجو سدجو لوجو بهاي هاي experience in digital communication أي لوجو بهاي إنه يشو experience in corporate writing and editing بلوجو بهاي هاي experience in non diversity activities بلوجو بهاي هاي experience with media like لأسمبل لوجو بهاي هاي أنت هصدق لوجو بهاي هاي مركا قف إن شاء الله واللينك كمان هنصدر دروها بداخله اللهم صل على محمد هب كلو حريني إنه كل شيء جيا وشغله وحريصان كرتاح حويان وهب أونلاين سي في قد يركزوا بعدين أونلاين كإن شاء الله كحريه كمبني لو يقانو Trust Private Limited وكمبني قاسي وحول بهاي هاي Admin and Finance نقالها هي مامل كقفو قابل سبو بهاي وانا هرقيسا وانا هل بوستيشنو وحن بحرين كرا فيميل دمرو بحرين كرا سياس درتد حالة بهاي هاي أقول هاي ناديالتو واجب كلاجا بهاي نسوق قرالة ببرتكوية لا مكان لينك كآخر أنا حق وصل لك دونا يوتيوب كا إلى كديجو سوق الحقولة قلت سأقولنا ما صار حدقي سارجين يو وحلو بهاي excellent verbal and written communication skill excellent negotiation skills إنه يشوا customer service skills وإنه يشوا قفاسي حيابها لقوا بهاي في البديهين در لك الشقة اللي واحد ويا واتماني تون بس كده وده هاي بايميل بشغل قدري هو بايميل فضل الايميل كا ان شاء الله حق هوسه ما كان ليك كله وداغو حق هوسه ku yaala waad ان شاء الله kaas isticmaali doontaa waayahay shaqo labaad baa jirto kulay kamarigu u baahan yahay oo hargeysa uga baahan yahay Trust Private Limited wuxuu baahay soo kale sales and marketing ayuu baahay hal qof hargeysa sidii lagu makiina loo xareynaya laakiin kan waa mail saafilayo rag ma ka soo xareynay kii horna gabadh baa soo xareyn karta admin and finance ka kanna wixii soo xareyn kara by any other form of rag ba kana soo xareynaya waayahay hay'ad loo yaqaano Islamic Relief waa hay'ad islaamiya waxay u baahan tahay field monitor intern afar boostish baa looga baahan yahay waa Muqdisho iyo Afgooye afraadka bisha June ayaa shaqadan soo xidhi doonta waa shaqooyinka ugu fudud kale la qaban karo dadka area ku nool Muqdisho area iyo Afgooye area waa two position Muqdisho iyo laba Afgooye ah 6 biloodna way shaqada ay qaban doonaan fadlan fiilasha maanta mashaariicda ay ka wada hay'adda Islamic Relief fiilasha ay soo monitor gareyn doonaan meelaha shaqada ku socoto hay'adda wax ka wado scope-ka shaqadaasi leedahay way qoran tahay iyadoo ritana fadlan linkiga ka raac aan ku soo diray
كل dadka aqoonta loo fahmi karaan aqoon maxaa laga baahan yahay degree baa laga baahan yahay ama diploma social science ka community development ka BA ga ama wixii kale oo fiilka la sixidhan no experience required bal wujuud الله والحمد لله chance badan wax weerarnimo laga maarna waxa kale laakiin la eegayaa basic field monitoring experience inaad basic aqoon basic inaad laga baahan yahay laakiin sanada lagu ma xirin fursadina waa loo sameeyay safeguarding waa jira hay'adda safeguarding policy waa leedahay sanfalayo sidaad ku xareyn kartaa by email bala shaqada lagu diray waa by email fadlan that's all hala balay garayo NRC maxay u baahan tahay temporary clerk of work saddex position baa looga baahan yahay Garowe Soomaaliya waa saddex position and job description kana waa waxa weeyaan waxa la yiraahdaa qoran tahay wixii marka clerks ka garan kartaa waa runtii waxa lagu the purpose of the clerk position is to assist in day-to-day implementation of the shelter wash and infrastructure projects mashaariicda inta badan ay hay'ad gacanta ku haysta hawl maalmeedka soconaya la xidha arrimaha shelterka gabaadsiinta mashaariicda la xidha iyo washka iyo wixii kale la xidha baalkii kaabayaasha mashaariicda kaabayaasha lagu xoojinayo ayaa qofkaas markaa uu assist gareynayaa waxa kale oo sameeynaya wax loo yaqaano daily site supervision meelaha hawsha ku socota waa inuu soo kormeero hadii tahay dhismayaal iyo hadii tahay wixii kale maartay la xidhiidhaba marka shaqada qaabku qabanayo waxyaabo looga baahan yahay oo ku qoran tahay waxa looga baahan yahay experience ka iyo diploma in civil engineering baa looga baahan yahay oo construction management baa looga baahan yahay afar sano waayanimo inuu leeyahay wixii la halmaala waana Garowe meesha ku shaqeyn doonaa qofkii markaa u baahan shaqada inuu apply gareeyo fadlan by online ku apply garanaya shaqada waa by online weeye NRC waxa kale u baahan tahay project manager bay u baahan tahay BRCIS ka mashruucaas phase 3giisi اللهم صل على محمد وحبنا مشروع على حدا building resilience communities in Somalia وبريس بلا يقانا dad بريس تام مقشوح كلام هو building resilience community in Somalia عشان resilience dad مقشوح حسلين dad كان دي دبات كل عضو أما قحنت كل عو أما بركة كل عو إنه لو شو دي يسع عادي نمدي الجسر normalization كويان therefore قف أنت عندي فهم كرسة كل ده هولا قصوش قصوى سكران كرتا فلنا ها بلا جريسو 40% ما يبي لقى قف السؤال بدن قري كرا وحق الصومالي تأتي كرا قف كم كشقاء وبهانة تنسبة أولا بكو حرين ريال information management officer ببهان تاعي UNSOS ببهان وهيدا قرامة المدوبي سات غانام با marka cidii shaqada yeelfay u baahan abala garayso oo ku fiican HKS waxa loo baahan yahay HKS 27 last teacher baa loo baahan yahay halka aad baa loo dalacay luqadda waa inuu si fiican u hadlaa bal Ingiriisiga qofkaas oo firaa ustaad waa inuu hadaa shaqada wax lagu abala garanaya by online diilaha ka dhigo marka cidii dananaysa ha abala garayso shaqooyinka laga faa'iideysto introduction to NGO management ka tababarada hadii aad u baahan tahay waanu bixinaa oo ama aqoonta ku yartahay ama waarimada xagga hay'adda ku yartayna fadlan WhatsApp ka ku qoro shaashada igala soo xiriir. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.